nabadgelyo. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. sharafi korkiina ha ahaato. waa anigoo ah Sidi Cali Macalin Ibraahim. waa barnaamijkii is abuur. dhammaantayn aragtida aynu ka haysano guushu aad bay u kala duwan tahay. midkeen waxa uu u maleeyaa marka uu dugsiga sare dhameeyo inuu gaaray guushii ugu dambeeyay ee nolosha u ka lahaa. midkeen waxa uu u maleeyaa inuu gaaray guushiisii ugu dambeysay marka uu dhameeyo qaybta koowaad ee jaamacadda. ama midkeenba waxaa dhici karta inuu guushu u maleeyo ama aragtidiisa uga taagan dhanka guushu ay tahay marka uu qaato master degree ama PhD degree inuu gaaray guushiisii xaqiiqda ahayd uu nolosha ka lahaa ama waxa loo abuurayba. ama midkeen waxa uu u maleeyaa guushu ama aragtida oo ka haysto ay tahay marka uu shaqo bilaabo ama oriyo uu haysto ama xaas uu yeesho ama caruur uu yeesho oo kale inuu gaaray guushii xaqiiqda ahayd. dhammaan intaasiba maahan guusha xaqiiqiga ah. guusha xaqiiqigu waa kii naarka badbaada jannadana gala. fawska cadiimka ah guusha xaqiiqiga ah guusha aan laga soo laabanayn waa ninkii naarka badbaada jannadana gala. intaas aan soo tixaya dhammaan in qofku dugsi sare dhameeyo, inuu qofka bachelor degree qaato ama master ama PhD ba ha noqoto, ama qofka inuu helo caruur iyo xaas iyo shaqo aad u fiican, dhammaan waa ahdaaf ama waxyaabo inaga aynu u baahnayn oo aynu rumaynay. riyo inagu aan lahayn oo argoon hore ku riyoonay oo aynu rumaynay wey intaas oo dhan. stebiska nolosha aan ka leenahay qayb ka mid ah ayaynu gudanay dugsi sare haddaynu dhammayno, qayb ka mid ah bachelorka marka aynu dhammayno. laakiin intaasi oo dhan waxaa jira sheeyo adduunyeed oo loo samayn karo ama kuu noqon karaba aakhiro inay wax kuugu hormaraan. aan ku fahansiiya hadalkayga. shay haddaynu samayno shay adduun ama adduun oo keliya wax looga helayo, balse niyadayna aynu ka dhigno niyo aakhiradeed wax baynu ka helaynaa. si fiican aan kuugu jilciyo hadalkayga. shayga yacni waxaynu baranaynaa luqad qalaad ama Englishka marka koowaad aynu baranayno waxaynu u baranaynaa ama niyada ictiqaadka aynu samaynayno niyada waxaynu u baranaynaa inaynu islaamka ku anfacno, diinta islaamka aynu ku faafino, midkeen inuu midka kale ku caawiyo, gaalasha inaynu waxyaabaha ay inoo dhigayaan waxyaabaha halista inoogu gelinayaan inaynu fahanno oo kale haddaynu u baranayno. taasi waa adduunyaabi soomaha. Englishka aynu baranayno badar baa lagu raadiyaa ama bariis baa lagu raadiyaa, balse xaqiiqda jirtaa niyadaasi darteed wax ay noqon kartaa niyo aakhiradeed. aakhiraynu wax ka helaynaa, xag alle ayay wax inoo jirayaan. shay walba la samaynayana waa niyo. rasuulkana waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaat. shay walba waa niyo. niyadaada meesha ay jirto ayaad adiguna jirtaa. shay kale waxaa jira oo aakhira lagu talagalay. haddaad barato aad wax fiican ka helayso, ajir badan aad ka helayso, balse niyadaada isbedelkeeda darteed aad naar ku mutaysan doonto. waa maxay shaygaasi? shaygaasi waa waxaad baranaysaa cilmiga diiniga ah. sida aynu la wada soconaba cilmiga diinigu haddii la barto aakhira ayay wax inoo jiraan oo ajir baynu ka helaynaa. balse haddaynu u baranno sayid ha lagu dhaho sayid, aniga haddaan u baranayo kale cilmigaasi ha lagu dhaho sheykhaas haddii la yiraahdo waa dadaalkeeda waan sameeyey, sanado badan baan kutaabo soo raacday, cilmi badan waan bartay, laakiin sababta aan u bartay maxay ahayd? inaan noqdo sheykh. ma ahayn ilaahay dartii, ma ahayn ajir ku hel, ma ahayn janno ku hel, ma ahayn dad kusoo muslimi, balse ha lagu yiraahdo sheykh hebel farta buu ka xiran yahay, mas'alo walba waa uu ka jawaabaa. niyadaasi way bedeli kartaa shay walba, wayna bedeshayba sida xaqiiqiga ah. janno ma arki doontid, balse waxaad arki doontaa waadi jahannamo ay ka magan gasho kumanaan jeer ilaahay. waadigaasi ayaad adigu ku waari doontaa. sababtana waa maxay? ilaahay dartii ma aadan usoo samayn. markii ilaahay agtii lagu geeyana aakhiro wuxuu ilaahay ku dhihi doonaa addoonkaygiiga waad baratay shaygaas, waxaana u baratay ha lagu yiraahdo sheekh hebel
وانا لغو يراهدي واديغاسي جهنم اي كمغنغليس جهنم اي مغنغليس فير واديغاسي جهنم اي كمغنغليس كان marka midkeen shay walba uu baranayo ama dan u kale yahay aakhiro xab aakhiradeed uu ka dhigin karaa haddaad jaamacad dhigato niyada koowaad markaad jaamacadda bilaabayso ka dhigo inaad waalidkaaga ku anfacdid inaad adduunyadaada adigu isku anfacdid aakhiradaadana aad ku anfacdid waalidkaaga dadka muslimiinta aad wax ugu anfacdid midhisanka marka aad baranayso oo kale waa shay weyn oo macquul ah barashadiisa laakiin marka koowaad haddaad u baratay waalidkaaga ku anfac dadka muslimiinta ku anfac ku caawi aakhiro ajir baad ka helaysaa balse cilmi diini ah oo ajir laga helayo haddaad barato istutus iyo halagaa sheego waxba kuma helayso shay walba aad baranayso ama aad bilaabaysaba u niyeyso ictiqaadkaaga ama niyadaada niyo wanaagsan ka dhigo insha arraxmaan waxaan rajaynayaa niyadaada inay aakhiro ku hagaagi doonto innagana waxaynu ilaahay weydiisanaynaa يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إنه نخن هذا الكينا يعماشينا إلهي إنه إسوافجيو متكينا وحكحن إلهي إنه أتوسيو وحي خير إنه وجرنا إنه نوافجيو نبي محمد وحو ويديستبينو إلهي ويديسانينا وحو كما جنقلنا وكما جنقلينا والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته